Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabta ku xidhan channelka waan wada salaamay. Bacda salaan maanta casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay sida hore u wada ogeydeenba registration formkii dashboardkaan ku xidhnay inaan updatekiisa iyo deletekiisa maanta sameyno. Okay, let's go markaas. Ugu horreyn waxaad la soo degi doontaa filekan update iyo delete ah. linkigaan adiga ku dhigi doonaa mid kasoo dhadgaraysan doontaa. Okay, hataa anigoo soo dhadgaraystay kaas weeye aad waad soo dhadgaraysan doontaa. ugu horreyn samkaan soo furanayaa samka markuu saniga soo kaco adu waxaad u baahan tahay inaad soo dhadgaraystay. anoo soo dhadgaraystay horena siyaystay waxaan soo keenayaa waan ku tusaasana qaabka uu yahay. kaas weeyaan error baa ku jira waayo database uma samaysana. markaa databaseka waxyaabahaas baan soo samayn doonaa markaas. Okay, nala socod wanaagsan. halkii ku jiraan samka dhexdiisaan kasoo furanayaa. kan weeyaan afartaa qaybood buu leeyahay. mid waa stylekiisii, saddexda kalena waa qaabkiisii. yarisiga visual codeka laygu soo yaro furayaa. then marka visual codeka laygu soo furo waxa layga baahan yahay database inaan usoo abuuro soo create gareeya. Okay, databaseka marka waxaa loo baahay marka hore kuwii hore databasekaan u sameynay id maan u sameynay. kan isaga waxaa loo baahay inaad id u samaysid databasekiisa waayo si uu update delete waxay badanka ku shaqeeyaan id-gaas. marka waa inaan databaseka id kasoo darno markaa soo create garayno. ugu horreyn waxaad tegaynaa halkan samkaan tegaynaa databaseka. soo fur samka kaba yaro sugaynaa database baan soo create garaysan yude. waxaanu bixinaynaa waxaan iska odhanaynaa update baan iska odhanaynaa create baan odhanaynaa. maanta marka hore halkaan markaan sii soconay halkaan tegaynaa maanta SQL-kaan ku qori doonaa waxaan ku qorino. fileka maan soo furanayaa halkaan iska dhex tago sanda file soo furne open file baan soo qaadanaya. adna linkigaan ku dhigi doonaa waad kasoo qaadan doontaa. markaa filekaas baan soo qaadan doonaa insha allah. kaa databaseka weeyaan data tablekaas wax kale ugama baahniye intaas waan uga baahnay intaas ka qaato. okay, intaan koobi dheh. marka intaa koobi garaysto then halkan maan keenaya. maxaa laga baahan yahay markaas userska iskada halkaas userska ka qoranta waa table namekeenii aynoogu samayn doono. halkan waxaan ka dhigi doonaa id-gii weeye. halkaas number 1 baad iska gelin doontaa waayo id-ga number 2 ka bilaabmaya. username waxaas mara first intii ma xasuusta registration formka ku samaystay intii wax halkan aan ku samaysanaya. first name last name last name say soo kala xigeen ayaan u samaysanayaa. gender baygu xigay genderka waxa igu sii xigay baan leeyahay. email baygu sii xigay. then marka xagga jooga interi copy garee copy c iyo hoos dhig enter iyo hoos dhig enter iyo hoos dhig enter iyo hoos dhig. emailka markaas halkaas waxaan ku samaynayaa password ayaa xigay. then kan course baa ku xigay. haddaanan fahmayn casharka kan ka horreeyay ayaa si fiican ugu soo sharaxnay in intaan halkan aan ku samaysanayo casharka kan ka horreeyay ayay igu jireen.
markaas intii cashirka hore igu jirtay waxaan kaysanaya number bay igu sii markaas idhaaho ilihisi meesha isku keena dhexaado haddii kale waaba sax waa caadi laakiin dhisaan yar bay yeelanaya markaas la sameeyo then waxaa laiga baahan yahay markaasaa sameynaa halkan id-ga 21 ay ku qoran tahay lambar 2 ka dhigo id-ga 2 ka bilaabmaya markaan intaas sameeyo go baan lahay create garay hadda database baa laga create gareeyay saad wada jeediin wakaas userska waa kaas baa laga create garay id baa raacsan marka waxaa sameynayaa inaan kii soo furto ayaan sameynayaa bottom bay ku qorneed select soo dhiso wada fur then markaa soo furto waxa laga baahan yahay inaa databasekiisaan tago halkan cali ku qoran tahay inay databasekan waxay noogu qornaa update baan ku qornaa far waaweyn update ayaan noogu qornaa save day styleka waxaa kama taabano indexkan tagaya halkaas users baa noogu qornaa users users meelaha ay tabeladoo dhan ku jira ama userka soo wada dhiganaya halkan user baa ku qoran sax markaa intaa sameeyo halkana aan ka wada eegeynay wixii wada saxiin save baan leeyahay all processkiisaan tagayaa halkana user igu bedel halkan users igu bedel kale aad waxaad samayn doontaa first name last name inta waa kuwa halkan igu jira markaa midkayga lamidoo kale aan soo dhaadhacsaday kaas baad adna iska soo dhaadhacsan doontaa aduu intaadaad ku bedelan doontaa ani hadda intaydu way tahay waxaan soo bedesho markaa ma rabo markaa waxaad samayn aduu intaadaad intaadii baad ku qoran doontaa inta kuugu qoran registrationkaaga ayaad ku qoran doontaa meelo kale ay ka dhigan tahay save and run hadda bal aniga wixii isbedela marka dhigto wixii lama helin database kama database aan kuu sameeyay refresh una siiya wakaas sidoo soo baxay wada jeedin sama bal waxaan soo geliyo anuu registrationkiiga aadin waxaan ka soo gasho email iska dhig numberka kaas ka geli passwordka kana geli course-kan psychology iska geli save day muxuu ku yidhi data saved successful datadaas waa la save gareeyay waa halkan noo taalo markaas mid labaadna soo geliyo soo geliyo mail weeyo passwordkan iska sii si program iska sii numberkana kan sii save day kaa kale maxaa la yidhi waa la save gareeyay hadda mid saddexaad bay safety naga taabatay waxay ku qornayn markaa delete baan iska lahay maxaa lagu yidhi haddana inay markaa shaqaynayso delete iyo ayaa naga tusayay halkan waa saalim tahay ku qoran tahay waxaan rabaa in magacaas soo qaldamay kale ka soo qaad saalim baan soo bedelayaa halkaa saalim baa ku qoran waa wada jeedin saalimkaa baan ka bedelayaa magac waxaan ka dhigayaa luqmaan update baan odhanayaa maxaa halkaa laga dhigay saalimkii maxaa laga dhigay update luqmaan baa laga dhigay la update garay haddaan rabana waan delete garayn karaa oo delete baan u taabanaya halkaa cabdiraxmaankaasina emailka kala qaldamay kala soo qaad emailka hore ayaan iska bedelayaa intaas cabdiraxmaan ka qoran tahay ayaan ka dhiganayaa taar baan ka dhiganayaa taar update iska dhig markaas waa laga update gareeyay markaas saa delete haddaan dhaahno waa laga saarayaa meeshii sidaas baad usoo samayn doontaa insha allah adigoo wax kale waxay iska fudud yahay markaas insha allah kama linkiga descriptionka yaalu yaalaa waad ka dhow garaysan doontiin insha allah okay intaan cashirkan intaan sameynay imika waxaan geyn doonaa dashboardkii aan registration ku xidhnay ayaan geyn doonaa oon updatekii iyo delete baan registrationkeena ugu samayn doonaa cashirka kan xiga markaa kan iska tusaale ahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu